hay-adda caafimaadka Ingiriiska ayaa sheegtay in ay soo saartay qalab lagu magacaabo Gallery kaasi oo bilaabi doona baaritaankiisa tijaabada isla mar ahaantaasina lagu tijaabin doono kumanaan qof oo ka tirsan shacabka Ingiriiska. Qalabkan ayaa loogu talagalay inuu daah qaado kansarka noocyadiisa kala duwan, iyagoo hay-addu sheegtay in ay rajeynayso in boqolkiiba 50 uu bilowga soo saari doono noocyada kansarka ee kala duwan. Noocyada ay adag tahay in ay si fudud u soo ifbaxaan calaamadahoodu ayaa waxaa ka mid ah kansarka cunaha, sanbabka iyo sidoo kale noocyo kale oo tiro badan, balse hay-addu waxay sheegtay in sida ugu dhaqsaha badan uu daah qaadi karo barnaamijkani isla mar ahaantaasina uu suurtagelin karo qalabkaasi in si fudud lagu ogaado kansarka ka hor intaanay soo bixin calaamadaha uu qofku dareemo ama dhibaatooyinka qofka la soo gudboonaada. Laakiin hay-addu waxa kale oo ay sheegtay in la rajeynayo in la gaadhsiiyo boqolkiiba 75 noocyada uu daah qaadi karo qalabkani, kaasi oo ay ka mid yihiin kansarka noocyada ay suurtagal tahay inaan qofku ogaanin isla mar ahaantaasina waqtiga dheer qaata sida kansarka ilmagaleenka iyo sidoo kale kansarka dhiigga raaca. Waxay hay-addu sheegtay in uu qalabkani baaritaankiisa suurtagelin karo in la baaro hidde-sidaha qofka, taasi oo ay suurtagal tahay in kansarka noocyo ka mid yahay hidde-sidaha qofka la falgalaan muddo dheer ka hor intaanu qofku dareemin calaamadaha qofka kasoo ifbaxa. Barnaamijkani ayaa la rajeynayaa in uu soo baxo 2 sano kadib oo ah 2023, waxaana hay-addu sheegtay inuu hadduu barnaamijkaasi guuleysto 2 sano ee soo socda lagu baari doono in ka badan 1 milyan oo qof. Yoonis Cabdiraxmaan, Ariel TV.